gudoomiye ku-xigeenno xildhibaanada sharafta leh ee golaha wakiilada Puntland guddiga doorashada culimaadudiinka isimada marti sharafta iyo ciidamada amniga oo door wanaagsan ka qaatay adkeynta nabadda iyo xasilloonida dalka kuwaasoo suurtageliya doorashada maanta halkaan aan ku fadhino iyo guud ahaan bulshada Puntland iyo tan Soomaaliya iyo warbaahinta nagala socda waan idin salaamayaa mar labaad mudanayaal iyo marwooyin aasaaskii Puntland waxa uu ku yimi wada tashi rabitaanka shacabka oo jecel nabadda iyo xasilloonida cadaaladda dawladnimada horumarka iyo midnimada Soomaaliya iyadoo dhismaha Puntland hormuud u ahaa qaab dib u heshiisiineed ahna dariiqa kaliya ee dib loogu yeeli karo dawladnimada Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka federaalka mudanayaal iyo marwooyin inkasta oo muddo 25 sano ah Puntland ay horumar badan ku tallaabsatay misana Puntland waxay ku sigatay inay gasho hubanti la'aan siyaasadeed oo dhinacyo badan ka saameyn lahaa xagga amniga wada jirka siyaasadeed iyo mid dastuuriya taasoo ahayd in laga tashado lagana baxo haddaba waxaan rabaa inaan anigu isu kin sheego hordhacaas kadib waa kuma Maxamed Cabdiraxmaan Faroole mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin in yar ka hor qalalaasihii iyo kala qixii dalka ka dhacay January 1991 waxaan ka qalin jabiyay kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda ummadda Soomaaliya halkaasoo waxbarashadeedii kala dhan aan ku qaatay sanadkii 1989 ayaan qalin jabiyay intaa kadib waxaan ka mid noqday dadkii ka qayb qaatay badbaadinta dalka gaar ahaan deegaanada Puntland waxaan ahay siyaasi khibrad ku soo qaatay maamul iyo dhismo dawladeed iyo horumarinta Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaan laba jeer ka qabtay Puntland xilal la taliyanimo amniga iyo arrimaha saxaafadda halkaan oo aan mar kale ka noqday la taliye arrimaha siyaasadda ra'iisul wasaarihii dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ahaa hogaamiyihii aasaasay ciidamada maanta xarunta baarlamaanka ilaalinaya intooda badan ciidanka BNPF ee la dagaalanka burcabadeedka waxaan dadaal dheer kadib ku guuleystay inaan ka suuliyo burcabadeedka xeebaha Puntland hase yeeshee burcabadeedii waa iyada maanta soo laabatay oo maraakiib xeebaha Puntland lagu qafaalanayo waxaan ahaa aasaasihii kulligiin sidaa ka warqabtaan idaacadaha Puntland kuwa ugu horreeyay oo ka hirgalay sida idaacadda Radio Garowe iyo warsidaha Garowe Online oo ah magaca kaliya oo ay Puntland wadato laba luqadoodna lagu qoro waxaan kaalin muhiim ka qaatay guddiyo farsamo oo geedi socodka dawladnimada Puntland iyo dhismaha hay'adaha dawladda mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkaan idinku soo gudbinayaa qorshayaal amni siyaasadeed dhaqaale cadaaladeed iyo mid bulshaba ee 5 sano ee soo socota haddii Ilaahay idmo aan ku guuleysto doorashada halkaan loo fadhiyo maanta walaalayaal waxaa muhiim ah in Puntland la jaanqaado siyaasadda maanta ee dalkeena oo ay ugu horeyso rabitaanka dadweynaha siyaasiyiinta gaar ahaan Puntland gobolada SEC khaatumo oo ah arrin masiiri ah oo u baahan in si wada jir ah oo loo dhan yahay lagana wada tashaday loo maareeyo loo difaaco loona garab istaago sidii shalay xoreynta gobolada looga wada qayb qaatay ayay tahay in aan u midowno wada jirkooda iyo difaaca masiirkooda mudanayaal marwooyin waxaan u baahannahay wada tashi iyo dib u heshiisiin aan kaga buskoonno khilaafyadii siyaasadeed ee keenay amni darradii ka dhacday Puntland qaybo ka mid ah qorshaha siyaasadeeda haddii la doorto xilkaan dib u nooleynta mashruuci dimuqraadiyadda oo loo guda galo si waafi ah waafaqsan shuruucda iyo dastuurka Puntland kana maran dan shakhsi ah waxaan dib u eegis ku samayn doonaa haddii Ilaahay idmo dib u saxidda dastuurka Puntland iyo ka qayb qaadashada dhamaystirka iyo iswaafajinta dastuurka federaalka markii loo baahdo
xiriirka dawladda dhexe waxaan dhisi doonaa haddii ilaahay idmo guddi wada xaajood oo ka shaqeeya xiriirka labada dawladood ee ku dhisnaan doona ixtiraam wada shaqayn iyo gudasho waajib ah oo ilaalinta danta reer Puntland iyo ta Soomaaliya guud ahaan qorshaha amniga mudanayaal iyo marwooyin waxaa noo qorshaysan 5 sano ee soo socota 2024-2029 oo aan ballan qaadaynaa inaan ku tallaabsan doono barnaamijka hoos ku xusan haddii ilaahay idmo sugidda amniga guud ahaan iyo gaar ahaan la dagaalanka cadawga argagixisada dib u habeynta ciidamada amniga Puntland sida daraawiishta booliiska asluubta iyo sirdoonka in xal waara laga gaaro iyo in laga hortago colaadaha beelaha dib u hawlgelinta ciidanka booliiska badda Puntland BMBF oo dib ugu noqda shaqooyinkoodii loo igmaday iyo la dagaalanka burcabadeedka iyo kalluumaysiga sharci darrada qorshaha dhaqaalaha kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland shaqo abuurka dhalinyarada gaar ahaan arrimaha xirfadaha oo horseedi kara shaqo abuurka gaar ahaan self employment 3 abuuritaanka ka faa'iideysiga kalluunka iyo kheyraadka badda dib u yeegleelidda mashruuca baaritaanka kheyraadka badda ku teedsan xuduudaha Puntland sida baarista shidaalka hydrocarbon exploration dhisidda iyo dib habeynta aeroboorada gaalkacyo qorshaha hirgelinta customka isku xira Puntland iyo gobolada bari iyo Itoobiya dayactirka wadada laamiga ah ee isku xirta gobolada Puntland gaalkacyo Boosaaso Garowe iyo Laascaanood gaarsiinta mashruucyada dhaqaalaha gobolada iyo degmooyinka ka fog laamiga sida Eyl Garacad Xaafuun Caluula Qandala Dhahar Baran iyo dib u dhiska gobolka Sool oo lagala tashanayo maamulka SCC Khatum ballaarinta mashruuca ilaalinta deegaanka iyo bay'adda 10 maalgelinta xoolaha beeraha iyo kalluunka adeegyada bulshada daryeelka iyo horumarinta arrimaha caafimaadka waxbarashada biyaha deegaanka iyo haweenka iyo dhalinyarada wax badan oo la soo koobi karin ayaa laga qabtay xukuumadduna waxay ballan qaadaysaa haddaad i doorataan in la sii xoojin doono hawlihii ay mashaariicdu socotay laguna fidin doono guud ahaan gobolada dalka hadduu ilaahay idmo waxaanu tayeen doonaa cududda ka shaqayn doonta arrimaha bulshada kuwaasoo aanu kor u qaadi doono aqoontooda iyo noloshooda hadduu ilaahay idmo dhalinyarada Soomaaliyeed waa xoogga ugu weyn ee dalka waxaana muhiim ah in la abuuro fursado shaqo oo wax ku ool ah si looga faa'iideysto xooggooda iyo hal-abuurkooda waxaan aaminsanahay in la maalgashado dhalinyarada si loo xaqiijiyo horumarka xasiloonida Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya wadada u maraynaa in aan fulino awoodsiinta dhalinyarada kobcinta xirfadaha taageerada ganacsatada yaryarka ah dhiirigelinta maalgashiga iskaashiga xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya dawladda shirkadaha iyo hay'adaha aan dawliga ahayn siyaasadaha shaqo abuurka dejinta siyaasadaha taageeraya shaqo abuurka gaar ahaan qaybaha sida tiknoolajiyada iyo dalxiiska xiriirka caalamiga soo celinta doorka iyo miisaaniyadda Puntland ay ku leedahay guud ahaan Soomaaliya iyo beesha caalamka adkaynta iyo kasbashada saaxiibo badan oo heer caalami ah dhismaha sanduuqa horumarinta Puntland Development Fund soo jiidashada mashaariicda caalamiga ah lagana hirgelinayo Puntland oo dhan mudana gudoomiye iyo mudanayaal iyo marweyn Puntland waa hooyadii iyo astaantii federaalka Soomaaliya waxaana lagama maarmaan ah in la xaqiijiyo midnimadeeda ayna door weyn ka qaadato dib u soo celinta midnimada Soomaaliya iyadoo la raacayo nidaamka federaalka ee dastuuriga ah waxaan aaminsanahay in federaalnimadu ay tahay nidaamka dib u heshiisiineed kaasoo ah mid waxna la wadaago waxna la kala leeyahay sidoo dastuurkeenu qabo mudanayaal iyo marweyn Puntland waxay leedahay cadow badan oo ah mid argagixiso mid burcbadeed iyo mid habacsanaanta guud ah Puntland waxay maanta u baahan tahay hogaamiye la soo tijaabeeyay dhinaca amniga oo difaaci kara badqabkeeda iyo midnimadeeda waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay idmo inaan hore u sii wadi doono horumarka Puntland gaar ahaan dhanka xoojinta amniga dib u habeynta nidaamka dhaqaalaha turxaan bixinta iyo hay'adaha dawliga iyo hirgelinta barnaamijka dawlad wanaag mudanayaal iyo marweyn haddii golahan sharafta badan codkiisa aan ka guuleysto waxaan idin ballan qaadayaa inaan u hoggaansamo sharciga iyo dastuurka Puntland haddii ilaahay idmo waxaan kaloo si xushmad ku dhisan tahay ula shaqayn doonaa kuna dhaqmi doonaa inaan xurmeeyo kuna shaqeeyo awoodaha ay kala leeyihiin hay'adaha dastuuriga ee dalka separation of power or checks and balances
ugu dambayn haddaad i doorataan haddii ilaahay idmo hoggaankaygu wuxuu noqon doonaa hoggaan wada tashi hoggaan midnimo hoggaan wada jir iyo hoggaan u heelan horumarka puntland waxaan ballan qaadayaa inaan sii wado geedi socodka iyo barnaamijyada dowladda si waafaqsan dastuurka puntland waxaan mar kale shir sharaf leh idinka codsanayaa inaad codka igu sharaftaan